وحدة إلهي هو نحرش ويقول له عمان إلهي هو بوغد أدبتين لك تشوف تبدأ حصنود يا ديرات بالي بيسعوتي نبا جيل وفريسة ويا مسيو اللي جيل يودي بها كوتشرا وكاساري هدي بلا كوتشرا والله وارك وهذا عصرينا هوشا المسكسو قاعد كل حاجة يفضل ما وضع هذا اللي سلال عيسى سلال محمد ninka oday hoosnimo galay iyo barasaafka gobolka wali kala farabadan intii waxaan ku ballanay aad baa looga shaqeeyay alxamdulillah ilaahayna labada dhinac wayna la garab galay waxaan rabnaa labada dhinacba cidii dhibta waday gacan bira lagu qabto awsha wadi isku iman doona waxaan codsanaynaa labada hadda gacanta ku dhacday intaynu isku soo gaarayno waxaan joognaa fiqi fuliye hawlaha ku haynaa wadiba wada ogtii inta weyn isku wareysannaa hawsha inta aynu isugu imaanayno nagu sibo walaal dhinaca dhul baxante haddii dalka siyaada ku yihiin anaga qaban doona haddii la yiraahdo haddii xagga Ciise Maxamed qayb siyaada ka tahayna yara waa la qaban doonaa waynu isugu iman doonaa gacan bira lagu qaban doonaa shaaqada cidda wada oo nabadu ka xidhmi weeyay markii la iskugu yimaado oo ay cadaato ciidanka la in lahaa baynu qaybeynaa billahi tawfiiq halkan waxaan ku diranaa anagoo joogna fiqi fuliye waxgaradkii iyo simadii iyo culimadii dhulbahante iyo faqashini baaq nabadeed ee ku aadan saaxmaygaag iyo finle shaqaaqada ka dhacday shalayta ka dhacday runtii aad iyo aad baan uga xunnahay marxuumiintii ku dhintay ama kuwii ku dhaawacmayna waa ka tacsiyadeynayna ilaahay au naxariisto intii ku dhimatay inta ku dhaawacmatayna allah u boogadhayo runtii waxaa ceeb ah muddo 3 sano ku dhawaada inay meeshaasi saxmaygaag la yiraahdo iyo finley inay shaqaaqadaasi dhammaan weydo oo marba ay soo noqnoqoto ceeb bay dhammaanteen inagu tahay aad iyo aad baan uga xunnahay wixii dhacayba dhace bal talada la isku soo gaaro dadka meesha jooga anagu ilaa shalayto waa shaqeynanay ilaa xalayto waxgarad badan baa baxay oo sool ka baxay dhinaca kalena odayaal baa ka yimi waxaanu codsananaa dadka deegaanada degan inay u qabsoomaan waayeelka u yimi iyo waxgaradka u yimi inay u qabsoomaan ay maqlaan runtii aad iyo aad baanu uga codsananaa waxaan kale oo aan farannaa ciidamada meesha la geeyay siiba dhinaca gobolka sool dadka degan waxa weeye ciddii qabsoomi weyda in waajibkooda ay ka gutaan wiilkii qori la orday ha noqoto ama waxa weeyaan ciddii kale ee shaqaaqa wada inay u qabsoomaan baanu rajaynaynaa halka oo bishu 25 Oktoobar tahay waxaanu baaq nabadeed ka jeedinaynaa oo ka direynaa gobolka Sanaag degmada fiqi fuliye colaada tolka ah ee ehelka ah ee walaalaha ay deegaanka ee ka dhex martay fiinley ilaahay waxaanu ka baryaynaa warta labadii nin ee ku dhintay ilaahay naxariis janno siiyo inta ku dhaawacantay ilaahay u boogadhayo hadalka badin maayo waxa la yiraahdaa xaajadu ama colaadaasi 3 sanadood bay soo socotay waxba kama dhinay waxba dheeraad ku ah waxa dheeraad ku ahna insha Allah marka hadda la isugu yimaada farta lagu wada fiiqi doonaa hartina ninkii waxa weeye gardaran waa la isugu tagi doonaa taana si abshir ay noqoto way ma eegan karno in maalin walba waxa weeye waxa misqaala dartii harti isugu yimaado anta aan joogno magaalada fiqi fuliye aan u joogno hawl nabadayna waxaan soo gaadhay in shaqaaqa ka dhacday magaalada meesha la yiraahdo saxmaygaag iyo maxaa gaas finley aad iyo aad baan uga xunnahay haddaan waayeelka nahay haddaan dhaqanka nahay aad iyo aad baan arrinta uga xunnahay waan cambaaraynaa runtii raallina kama nihin xalay maan naseexan iyo shalay tabarkaana hawshaan maqalay waa ka xanuunsannay dad walaala ah oo isu hiiliya oo isu dhinta oo isku dhufays ku jira in xabadoodu isku dhacdo marna raalli kama nihin maamulka Khartoumana kulli xalay way ka howlgaleen waxaan ugu baaqaynaa in labada qoloba ay gacan bira ku qabtaan oo dadka inaga farabaxsanaya dhalinyarada iyo cabtooyga inaan meel iska saarno waxaanu leenahay awalan Ilaahay ha u naxariisto waxay naga dhintay waxaan leenahay hal laga joojiyo dagaalka la joojiyo gaar ahaan labada maamulba arintaas waa inay gacan bira ku qabtaan waa inay dadka wax magaratada ah ama ceelka ama cawska ama deegaan iyo dhulka la cishiga ku dagaalamaya ay saaraan maaragtay ba xooga saaraan cid kasta oo ehelaho meesha joogtaan ay ku soo baxdo
xaggan SSC odayaalahaan iyo maamulahaanba waa lagu baxay qolada Puntlandna waxaan leenahay war arrintu inta ayaan inagu dhaafin dadku waa dad ehela waa dad muslina waa dad wada dhashay oo walaal ah ma istaahilaan maanta inay dagaal galaan waajib uma aha wa ilaahay xaqiisana kuma aha wanaag kuma aha halkan marka ugu horeysa waxaan ka taxsiideynaa wiilashii naga dhintay saaxmeegaag iyo Finley shalayto sidaa isnada ugu horeeyay uga hadleen waanu ka taxsiideynaa waa kugu dhamay ka dhumay waa rag difaac ku wada jiray weeye waa rag soo dhimanayay sida garaadadu ay sheegeen dhammaan waan isaga taxsiideynaa